بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضعتين عبد القادر الشيخ وربي إني نسجل برنامج كلام كوسابسن برنامج كذا أرماه وطن كسويدن إيو ودمر الدرس كله مر ربنا إن حتى إذا لقى بسنه وحي كوسا كرر جرهان وحاجته ما أنت أو يتعرض هاي لما يلواتك بيجي تضبط لما يكون إيو لواتني كو رنتي waxay ku beegan tahay 10 sano oo laga joogo dhacdo argagixiso oo ka dhacay wadanka Norway gaaraan u geystay nin u dhashay wadanka Norway maalintaas runtii ninkaas oo magaciisa la yiraahdo Anders Breivik la yiraahdo waxa uu maalintaas oo maanta ku beegan 10 sano laga joogo oo ay ahayd 22 bishii 7 2011 waxa uu gacantiisa ku dilay 69 qof ayuu gacantiisa ku dilay wuxuuna ku dilay meel jasiirad ah oo la yiraahdo Otoya la yiraahdo jasiirad runtii oo loo tago waqtiga safarka la tago jasiiradaas oo maaragtay u dhow caasimadda wadanka Norway Oslo u dhow marka sanadkii 2011 wuxuu gacantiisa ku dilay 69 qof oo u badnaa dhalinyaro xisbiga shaqaalaha ka tirsan wadankaas oo markaas doorashooyinkii dhacay September 2011 soo dhawaa ayagoo isu diyaarinahay doorashooyinka ninkaas marka wuxuu ahaa nin argagixisa waxaan u ahaa nin la yiraahdo nin aaminsan dadkan la yiraahdo markay dadka mayalka adag ama dadka maaragtay runtii dhinaca midigta fog ayuu ahaa oo aaminsan sareynta dadka cadaanka aaminsan dadka maaragtay runtii la yiraahdo maaragtay oo aaminsan maaragtay dadka in dadka cadaanka ka sareeyaan oo dadka kale aysan dadka kale xagalka dadka diidan inay bulshada adduunka wada noolaato oo ka soo horjeeda dadka maaragtay in adduunku sid isdhexgalay in dadka isdhexgalaan ama isu qaxaan ama isla nooladaan ayuu aad uga soo horjeeday marka wuxuu ahaa nin runtii xagjir buu ahaa nin xagjir ah marka maalintaas waxay ahayd runtii dhacdo aad u xanuun badan oo 22 qof oo dhalinyaro u badan waxaan ka wadaa 69 qof oo dhalinyaro u badan ayuu gacantiisa ku laayay jasiiradda inta ugu galay ayuu maartay hal maadaama jasiiradda ka fogeed dhulka ay ka fogeed muddo hal saac gudahooda ayuu wuxuu ku laayay 69 qof waxaa ka horeysay runtii isla maalintaas 22 bishii 7 2011 saacadda markay ahayd 9 barka ama 3 barka sida qof walba uu yaqaano waxa uu bam ku qarxiyay oo maaragtay gaari bam wuxuu ku qarxiyay ama bam baa la sheegay inuu ku qarxiyay maaragtay xarunta maamulka ee dawladda xarunta maamulka ee magaalada Oslo ayuu qarxiyay 8 qof ayaa meesha ku dhimatay isla 2 saac gudahooda wuu baxay waxa uu tagay goobtaas uu tagay oo taayay meel yar ayuu tagay oo jasiir yar ah oo ka baxsan magaalada ka baxsan dadka meesha ku shirhaya oo xisbiga shaqaalaha ee wadanka Sweden isu yimid ee wadanka waxaan ka wadaa Norway wadanka Norway oo dariska ay Sweden yihiin isku yimid dadkii oo xisbigii oo doorashada isu diyaar dhalinyaro u badan ururka dhalinyarada waliba ku shirayay ayuu meesha ku toogtay 69 qof gacantiisa ku dilay runtii waxay dhacday aad u xanuun badan maalintaas waxaa la sheegaa oo dadka laynayay oo dhacdadaas maaragtay argagixisada ninkaas uu geystay dhacdadaas waxaa lagu tilmaamaa terror attempt ama argagixiso weerar argagixiso ayuu ahaa runtii maalintaas wuxuu ku beegay sidii la sheegayo sanadka markuu ahaa qarnigii 10aad kun markuu ahaa waxaan joognaa 2011 markuu kun ahaa waxaa jirtay sanadkaas waqtigaasayto maalintaas ku beegan oo sanad kun markuu ahaa oo bishii 7aad ay ahayd 22keedii dhacday oo maaragtay dadka Christianka aaminsan oo dagaalyahanada Christianka inay gacanta ku dhigeen maaragtay wadamo badan oo dhinacan maaragtay dhinacan badda dhexe ee maaragtay sida maaragtay wadamada Italy oo kale iyo dhinacan maaragtay waqooyiga Afrika gaar ahaan Egypt marka waxaa la sheegay in maaragtay uu ku beegay dhacdaas oo ahayd dagaalkaas oo maaragtay lagu qabsaday agagaas laakiin nin wuxuu ahaa aaminsan xag jir ah oo dadka cadaanka dadka ka sareeyo aan dadkan aaminsanay bulshooyinka inay isla wada noolaadaan dadka Soomaaliyeed aad u diidan xisbigan leeyahay xisbiga shaqaalaha marka uu xisbigu u leeyahay dadka inay wada noolaadaan oo marka dadka aad u soo dhaweeyay oo mujtamac badan ku jiray marka 69 qof ayuu maalinta ku dilay marka maalintaas ay ahayd rabana idin la qaybsaday runtii dhacdo runtii loo baahan yahay in maaragtay dadka la ogeysay ama ay xasuusadaan gaar ahaan dadka aaminsan wada noolaanshaha iyo maaragtay bulshooyinka adduunka waxaana la qabtay maanta xaflada waaweyn waxaa lagu qabtay oo lagu xasuusanay dhacdooyinkaas kulamo shirar badan baa lagu qabtay wadanka Norway oo ay ka soo qayb gashay ra'iisul wasaaraha wadankaas ay ka soo qayb gashay dad badan ay ka soo qayb galeen waxa lagu qabtay magaalada Oslo runtii dhacdaas aad u xanuun badan ahayd
markii dacdada ay dhacday waxa weeyaan waxay dhacday 5:15 11 saac iyo bar galabnimo ayuu bilaabay ilaa iyo 6:15 hal saac ayuu waday booliisku waxay ka soo gaareen 6:15 ay booliisku yimaadeen goobtii marka oo taayada yimaadeen way maadaama ay magaalada ka fog tahay doontii soo qaateen dadkii dad baa argagaxay dad badda isku tuuray dad baa maaragtay meel kale ku dhacay marka waxaan dadkii ma soo bixi karaan meel jasiir bay ahayd marka meeshu buu ku helay meeshu ku laayay dadka uu laayay waxa ku jira nin booliis baa ku jiray uu laayay meesha waardiga hal nin baa waardiga meesha dhan halkii qofna waa dilay oo booliiska ahaa meesha ku dilay marka runtii dhacday aad u xanuun badan bay ahayd oo maalinta dhacday waxaa kaloo jirtay maaragtay in markii la qabtay isla markii waa la qabtay marka waxaa la xukumay oo waxaa la saaray maxkamad baa la saaray oo 2012 bishii diidad baa la xukumay waxaa lagu xukumay wadanka Norway iyo sida maaragtay wadamo badan oo Scandinavian-ka Europe ku yaala xukunkooda kuma jiro dil toogasho kuma jiro qofka wax dil badana waxa ugu badan 15 ilaa 25 sano waliba Norway waxay ka mid tahay wadamada 15 sano qofka ilaa 20 sano marka waxaa lagu xukumay xukun adag 21 sano ayaa lagu xukumay xukun adag oo ah inuusan qof bini aadan arki karin inuusan adduunka la socon karin inuusan idaacad dhageysan karin internetka in laga xiro iyo in ay arki karaan kaliya dadka xabsiga inay arki karaan kaliya ayaa lagu xukumay marka ninkaas oo la yiraahdo Anders Breivik runtii nin wuxuu aad hatta kama shaleeyay markuu xabsiga ligay kama soo shaleeyay sidii la sheegay nin aad wuxuu ahaa runtii aad u aaminsan fikrad argagixisay leh ayuu ahaa marka xabsiga markii lagu xukumay waxaa loo ogolaaday kaliya computer in la siiyo oo aan lahayn internet iyo buug waxaa loo ogolaaday game inuu ku ciyaaro TV game ayaa loo ogolaaday laakiin game-ka loo ogolaaday iyo internet-ka loo diiday uu ka dacwooday wuxuu yiri game-ka loo ogolaaday waa game caruurta 3 jirka ku ciyaarta caruurta 3 jir ku ciyaarta yiri aad buu xanaaqay oo qorshihiisa wuxuu ahaa markii la xukumay wuxuu sheegay in uu waxbarasho gali doono asagoo xabsiga ku jiro inuu doonayo inuu noqdo lawyer ama qareen ama sharci yaqaan inuu noqdo inuu doonayo ayuu sheegay laakiin markuu waxbarashada inuu bilaabaan filaya wuu joojiyay waxbarashadii asagoo ka dacweynaya dhahay si xun baa ila dhaqmay dad ma arko bini aadan iima yimaadaan adduunka lama socdo warar ma dhageysto qof iima yimaado waxaa loo ogolaaday hal mar hooyadiisa inay ugu tagtay meesha 2013 hooyadii dhasha ugu tagtay meesha sidii la sheegay laakiin qof bin aadan kale u tagay ma jirto kaliya aan ahayn dadka marka xabsiga shaqo cuntada u geynahaya ka qaadahaya iyo wixii kale u baahda marka siinahaya nolosha ah marka maanta waxay ku beegreen marka 22 bishii 7 2012 dhacdadii weerarkii argixisay oo ka dhacay wadanka Norway gaar ahaan meesha la yiraahdo Ottawa oo marka ay ku shirahayeen dhalinyaro ka tirsan xisbiga shaqaalaha waxa ku shirayay 500 iyo waxa meesha joogay 80 qof ayaa joogay meesha jasiiradaas wana jasiirad loo tago dalxiis ahaan waqtiga ku deelaha marka 580 qof ay weerar ku qaaday hal nin baa waardiye ka hashan oo meesha joogay kaliya oo booliis ahaa ninkii booliiskan waa dilay sidii la sheegay marka taas baa inay la qaybsadeen waxa kale doonayaa qodobkayga labaad maanta waxa doonaya idin la socodsiyo aan ka faa'iideysto waxa ay tahay Sweden maanta waxa ka dhacday maxkamadda la yiraahdo Hovrätten ama maxkamadda heerka labaad maxkamadda heerka koowaad waxa la yiraahdaa Tingsrätten Hovrätten iyo Högsta domstol Tingsrätten waxa weeye maxkamadda heerka koowaad Hovrätten waa kan labaad Högsta domstolna waa maxkamadda sare weeyaan marka maxkamadda heerka labaad ayaa waxay ku xukuntay shirkad aad u weyn oo wadankan aad lagu yaqaanay oo maamuli jirtay lacagaha ama hantida dadka maaragtay beeshanka ah ama howlgabka ah sida la socotaan inta badan dadka shaqaalaha adduunka ama shirkadaha badan ama wadamo badan waxaa laga jiraa wax la yiraahdo lacagta beeshanka ama lacagta howlgabka waa laba lacag midna laga jiraa midna shirkadda ka bixinaysa marka lacagta beeshanka wadanka shirkadaha maamula marka shirkadaha loo dhiibaa inay ku sii shaqeeyaan oo nin walba shirkad buu doortaa runtii shirkad baa dooranaysa shirkadaas baa kugu shaqeynaysa qaarkood kuma shaqeeyaan qaarna way ku shaqeeyaan marka dadku waxay doortaan shirkadii ribax keenaysa ama faa'iido u keenaysa marka shirkadaas waxay maamulaysaa lacag dhan 20 bilyan oo lacagta koronaha wadankan u dhiganta 2 bilyan oo US dollar lacag haysta 2 bilyan oo kala bay lacagta ay maamuleysay
ilaa 100,000 oo qof ayaa lacag dhigatay meeshaas marka lacagta waxaa lagu eedeeyey inay u isticmaashay si aan sharciga ahayn yaa lagu soo eedeeyey muddo hadda laga jiro 3 sano ka hor sidaan qiyaasay marka dacwadii waa socotay wax badan baaritaan buu socday wax badan waa shirkadii xataa maaragtay runtii waxay gashay khasaaro oo xafiisyo badan bay xirtay laakiin dadkii shirkadda maamulahayay way joogaan mas-uuliyaddii ayagaa iska leh marka waxaa lagu soo eedeeyey waxa la yidhaahdo Trolos head mood hovedman oo macnaheedu ay tahay waxa weeyaan ku tagafal awood ayaa lagu soo eedeeyay iyo mood brod baa lagu soo eedeeyay oo ah dambi laaluushka waddanka wuxuu ka mid yahay dambiyada aadka ugu culus buu ka mid yahay laakiin nasiib darro waddankeena Soomaaliya laaluushka waa nolosha waa dhaqanka waa dhaqaalaha lagu talagalay reerka in lagu maamulo 90% waayo ninka shaqaalaha ah mushaarka uu qaadanayo ninka askariga ah ee ninka maaragtay madaxda lacagta uu qaadanayo iyo lacagta uu ku dhaqmay isma leh waxay aad u kala dheer yihiin waa kaafikal dheeri weyn laakiin waddankan qofku waxaa isku dayaa noloshiisa wuxuu qaadanayay wuxuu ku noolaanayay in la simo la soo dhaweeyey at least qofka inuu helo guri uu ku noolaado iskaga bixin karo cuntadiisii iyo waxyaabaha yar oo nolosha markaas kaabaysa inuu heli karo marka qofka kuma dhiiranayo laaluush laakiin nasiib darro ninkan waxaa lagu eedeeyay laaluush baa lagu soo eedeeyey oo nin dhan wuxuu ahaa VD waxa weeyaan ninka u sarreeyo hogasta waxa weeyaan muxuu ahaa executive-kii ugu sarreeyay maamulka sare ee shirkadda ayuu ahaa shirkadda waxaa la dhahay alra maanta waxaa lagu xukuntay maxkamadda heerka labaad hovrating baa ayaa xukuntay ayagoo 4 nin ah yaan filayaa wax yar aan eego ayagoo 4 nin baa la xukumay ninkii aas-aasay shirkadda oo madaxa u ahaa iyo ninkii maamulka guud hayay iyo 2 kale oo ayaguna awood ku lahaa shirkadda horta ninka madaxda ka ahaa waxaa lagu xukumay Odir Alexander Ernest Barry 6 sano oo xarig baa lagu xukumay 6 sano marka asagu ma uusan filayn runtii afartooda maxkamadda ma aysan joogin sababtoo ah maxkamadda heerka hoose baa sii daysay marka hore maxkamadda heerka hoose baa dambiga xogaa way qafiifisay way sii daysay laakiin xeerlaalihi wuxuu xaq u leeyahay oo difaacaya dhaqaalaha iyo dowladda difaacaya inuu dambiga sii qaato wuxuu u gudbiyey maxkamadda heerka labaad ama racfaanka ayuu u gudbiyey maxkamadda racfaanka ayuu gudbiyey hofrating ayuu u gudbiyey marka hofrating ayuu dambiga way sii baareen waxay dambiga bay ku heleen ayagoo maqan oo waddanka ka maqan oo fasax ku jira yaa kulligood la xukumay waxaana lagu xukumay 6 sano ninka u sarreeyay 6 sano waxaa la Alexander Ernest B waxaa la yiri 6 sano xarig ah ayaa lagu xukumay asagoo safar waa loo sheegay iyo 10 sano inuusan wax shirkad ama ka qayb qaadan karin arrimaha ganacsiga ayaa lagu xukumay wax shirkada inuusan ka qayb qaadan karin arrimaha ganacsiga runtii aad ba ugu naxay warka markii la gaarsiiyey booliiskan waxa amar lagu siiyay salaamaad in la soo xiro meel ala meesha joogin in la soo qabto marka wariyaha waxa aad wararka u baara shirkadaha maaragtay wararka wakaalada wararka Expression waxay ka mid tahay wakaalad warar aad u xoog badan waa la doondooninka waa la helay taleefon baa lagu helay wuxuu u soo sheegay hay-adda ama wargeyska la Express wuxuu u soo sheegay in uu imaan doono khamiista safar oo ku jiro waddanka markuu inuu isdhiibi doono uuna xabsiga geli doono laakiin wuxuu sheegay inuu ka qaadan doono racfaan kale hal maxkamad baa u dhiman maxkamadda sare baa u dhiman bes maxkamadda sare baan ka qaadanaya waan aad ba ugu naxaa la yidhi aad bay ugu naxma aysan falaynin in ay xukunkaas uu ku dhici doono maanta runtii xukunkaas wuxuu ahaa xukun aad ay ugu naxeen shirkadda Alra oo maamusha ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn waddankan oo maamula dhaqaalaha dadka maaragtay howlgabka ah dhaqaalada maamulo ayay ahaayeen marka waxaa kaloo lagu xukumay dhaqaalihii inay dib ugu naqaan hay-adda howlgabka ee waddankan oo loo yaqaano pension management ama hay-adda pensionka inay dib ugu naqaan dhaqaalihii marka aad bay ugu naxeen runtii waxaa la sheegay Alexander waxaa la sheegay dhowr maalmood ka hor inuu gatay gaari jooga 1 milyan oo lacagtan waddankan ah oo u dhiganta $100,000 inuu gaari ka baxshi baa la sheegay waa dhowr maalmood ka hor inta maxkamaddan aysan dhicin marka ay waxay filayeen in la sii dayn doono maadaama maxkamaddii heerka koowaad ay sii daysay maxkamadda heerka labaadna ma aysan filayn aad bay uga naxeen waxayna sheegeen in dhaawac weyn uu soo gaari doono dhaqaalahooda iyo mustaqbalkaba shirkadooduna waxaa la sheegay in meelo badan la xiray oo magacooda xataa laga tirtiray dhaqaalahooda keliya uu ay meel ku haystaan laakiin hay-adda waddankan qaabilsan
muxuu ahaa howlgabka beeshanka waxay sheegtay inay awoodii laga qaaday howlihii ay hayo dhanba waxaan doonayaa marka qodobka saddexaad inaan kusoo gabagabeeyo warbixintii shalay aan halkan ka sheegay oo shalay oo ahayd bisha 21 waxaa dhacday afduub ka dhacay xabsi ku yaala magaalada Iskalastuun banaankeeda oo maaragtay ay afduubeen laba qof oo xabsiga ku jira oo maxaabiis ah inay afduubeen laba qof kale oo shaqaalaha ayagoo haysta shay madax ah ama sida maaragtay oo af leh ama waxa la sheegay sakiin waa la sheegay ayagoo haysta sakiin baa la yiri rabbi markii ugu dambeeyay ay laba qof ku qabteen qolkii markaas ay ku jireen ay fadhiyeen ay u galeen meesha isku soo xiran marka shalay waxay idin sheegay waxay codsadeen isla markiiba shalay waxay markay saacadu ay ahayd maaragtay 12 duhurnimo oo kale shalay taariikhda waxay ahayd 22 bishii 7 2021 bay ahayd marka isla markiiba waxay codsadeen 20 baakad ama 20 pizza weyn oo ah kabaab leerada kabaab ayay codsadeen waxay kala codsadeen sidii la sheegay shalay aan idin sheegin in diyaarad helicopter loo keeno ay ku baxsadaan labada qof mid waxa la yiraahday Isaaq David baldahay kan kalena hanad bay qor laakiin hanad inuu yahay filaya Abdullahi ayuu ahaa waa nin Soomaali ah oo sharci lahayn wadankan oo sharci haysan buu ahaa waxay ku xukunaayeen min 18 sano xariga ayay ku xukunaayeen marka afduubkii markay suubiyeen wada hadal baa dhacay marka hore mid bay soo daayeen adiga 10 saacadood markay haysteen kii kalena way soo daayeen booliiska isu dhiibeen isla markii waa la qabtay sidii la sheegay booliiska markii uu qabtay waxaa la geeyay sabdhig booliis baa hadda la geeyay ku jiraan hadda booliiska ayaa haya waxaa lagu eedeynaya hadda dambi ah afduub ayaa lagu eedeynaya jaa afduub bay geysteen dambi kale weeyaan dambigii hore maxay ka xukunaayeen dil bay geysteen oo 18 sano bay haysteen xabsi inay ku jiraan laakiin haddana dambi kale bay geysteen oo afduub ah asagan wuxuu noqon doonaa intii u soo baxda ama 5 sano ha noqoto ama 6 sano ha noqoto waa lagu darayaa marka waxay noqon doontaa dhowr iyo 20 sano in xabsiga ku jiri doonaan oo xabsiga noloshooda ku dhameysan doonaan ay og tahay marka intaas inaan idin socodsiiyo arrimahaas baa rabaa inaan maanta idin socodsiiyo intaas kusoo gabagabeynaya waa wadaadkii Cabdulqaadir Sheekh oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh